kuma jiro maxaa yeelay youthka maanta western ku nool boqolkiiba 9 la diin mulxidiin bay noqdeen in aad u dirto jaamacadaha ku dhow ee muslimiintuna ay u badan yihiin masaajida ku dhex yaalo macnaha dadka muslimiinta is arka u dir gabar wax arkaysa kaligeed بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أولاد وحو كدغي وحيالها حتى بعض الأنبياء إلهي ويدي سنجرين وهي قاركود كو عتابيا كو أويا كو على دهيا ربي هب لي من لدنك ذرية ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي يا رب إلهي هب لي من لدنك إلهي أكتاد إغسي ذرية طيبة تفير وناكسن أو قرح بدن الله أكبر والله ثم والله حافظا أن دقنه مال لو تسكول هاي سكول كويا لو حل إيش يجي قبل كاسة عرور oo wiil iyo gabar ay dhashay midna oo khaniis ka noqday wiilkina oo khaniis ka noqday gabadhina ay ka noqotay maartay gaal ay ka noqotay wiilkiina kuba LGB gu ku biiray gabadhina gaal bay ka noqotay la ilaaha illa allah hadii marka aadan baranin sida aad caruurta u tarbiyaysan lahayd caruurta waxaad u sheegi lahayd marka ay guriga joogaan waxa aad bari lahayd marka ay banaanka joogaan say u noolaan hadaadan barin da automatic wixii ugu mashubmayo maanta marka waxaan rabaa inaan ku tilmaamo 8 waxyaalood oo markuu cunugu ama ilmuhu markay guriga joogaan la raba inaad kula dadaasho 8 waxyaalood oo markii ilmuhu ay guriga joogaan hadaad kula dadaasho biidnillaahi alkariim ay adkaan doonaan oo markaas qalbigooda iyo niyadooda ay saalix noqon doonto ubadkii la rabina ay noqon doonaan waxa kale oo ku xigi doonta insha Allah taala kharij almanzil ciyaalku markay guriga banaanka uga maqina waxa laga rabo marka hadii aan dib ugu noqdo maalmihii hore waxaynu ka soo sheekaynay caruurta 5 waxyaabood baan ka sheekaynay oo ilmaha sidoo kale hadii lagu dadaalo macnaha ilaahay u badbaadinayo إلهي وأسألك شكينا يا نبي الله زكريا عليه السلام ضحي يا زكريا إنا نبشرك وحنكو بشارينا بغلام عنق اسمه مقعس يحيى ليلة هذا لم نجعل له من قبل سميا أسأكورنا أنا مقعس عندنا معنا الله وياري مركا إلهي وحين ويديسانينا أولاد صالحين تا إنو إلهي أولاد نوناجيو هدي أن بالله بأن صوكوبو كو عيالكم مركا غوريغا جوغان كل الدذال الصلاة الجماعة صلاة الجماعة إن عيالك كنت كذانها إلوبين مساجد كودوي هذول مساجد كودوين فردق صادق سجايات صادق كتاب قرآن صادق هل إسلتو كذو الصلاة الجماعة هو يا كهر تكتو أبها كهر تكتو نك إذا صاب وقذا لبرق على السنة جورها كنت كذو جبرها كنت كتو جورو أهل الصلاة هنأخذ عيالكم مركز تها أركيان دد سجودية إدد ركوعية إدد الله أكبر لها أركان إن شاء الله تعالى وتكوبات طلبات وحويان قراءة القرآن guriga yawmiyan waa ilmaha waxa laga rabo maalin kasta waa in ay ciyaalku quraan guriga ku akhriyaan hatta hadii sida loo akhriyo garanaynin waa inaad quraan shidaa saacad 2 saacadood waa in dhagahooda ku dhaca kalaamullaahi subhanahu wa ta'ala annaga waxaan ka sheekaynaa bi'ad adigoo qurbaha jooga adigoo wadamo gaala jooga adigoo meel cidla degan adigoo tuulo degan hadii aad kula dhaqanto caruurtaadu ay noqonayaan caruurtii la rabay diintoodana ku adkaanayaan ciyaal qiyam leh oo akhlaaq leh oo aqoon leh oo dhisan oo aan ma taqaan ciyaalka xun aan ay ku noqonayaan barabna inaan insha Allah ta'ala tilmaano maalmahan haduu ilaahay yiraahdo kow maxaa niri as-salaat al-jamaa'a salaada guriga aabi hooyo waan isku xidhaan haduusan aaba joogin hooyo iyo abti waan isku xidhaan waa in ma taqaanay habreer iyo hooyo isku xidhaan waa in guriga ay salaad ka jirtaa iyo ilaahay wani subhanahu wa ta'ala laba qiraa'atu al-qur'aan baanari waa in guriga quraan lagu dhax akhriyaa saddex waxa laga rabaa ehelka guriga marka aad joogto aadaabta usrada in aad ciyaalka aad barto آدابته أسرة وأنا عيالك برتو for example guriga markay soo galayaan salaamu calaykum raxmatullah hadii ayay timaado haduu awow yimaado inuusan ay bar ku deganaanin oo uu soo dhaweeyo oo uu la hadlo ayay how are you ma sha Allah ayay hooyo qisan nooga sheekay in ciyaalkii ma aragtay aad barto in ay guriga dadka yimaada ee ehelka ah ay soo dhawin oo ay la hadlayaan oo isbarayaan oo ay magacooda u sheegayaan maalmaha waxaan aragnay cunug aabihi markuu yimaado ama hooyadii timaado hatta aan saa u soo qooransanin oo ay bar iska haysta
ma oga waxa ka socda gabadh baa guriga soo galaysa iyadoo telefoonkiisa leh bay kor qaybta koraayaysa stairskay fuulaysa qolkeeda hore ka sii galaysa guriga yaa jooga saaka yaa xanuunsana yaa ku soo kordhay ama ayay xanuunsan ma aabax waxa dhaxo kama hayaan aadaabta usradana ciyaalka in la bar insha Allah ta'ala ta afraad waxaynu niri waxa weeyaan iyaduna waa in luqadda hooyo guriga looga hadla waxaan arkay waalidiin xiisaynaya wadamada aan deganahay Swedishka iyo Norwegianka iyo Americanka iyo Dutchka iyo Hollandiiska iyo Australianka luqadda wadanka ay joogaan bay kula hadlayaan iyagoo u maleeya in cunuga hadii luqadda lagula hadlo ay aqoon hore soo galayso oo aqoon kasra ay soo galayso waxay dhahaan culimada ka hadlaysa tarbiyada caruurta cunuga waxa ugu horeeya ee kobciya aqoontiisa iyo akhlaaqdiisa waa luqadiisa maxaa yeelay luqadaadu saad ugu hadli karto ugu dhirki karto luqad kale ugu dhirki karta malaha influence waxaad ku noqon kartaa luqadaada hooyo afka Soomaaliga ama Mareykan ku dhalo ama ha ku dhalin mar walba ESL baa lagu diraya ciyaal badan waxa halka Mareykan ku dhashay oo ESL loo diray iyagoo halkan ku dhashay luqadoodina ma hayaan tii Amerikaanka ahaydna ESL baa looga diray oo dad baa ma taqaana bajeeda ku qaatay war cunugaadu habarto luqadaada maxaa yeelay luqadaada waxay xambaarsan tahay culture-kaaga culture-kaagu wuxuu xambaarsan yahay islaamka maxaa yeelay inaga haddaan Soomaali nahay culture-keena iyo dhaqankeena waxa ku hoos jira diintii baa ku aasan marka mar walba cunugu uu luqadda Soomaaliga ku hadlo wuxuu ogaanayaa inuu islaam yahay luqadda hooyo kula dadaal waa arinta shanaad ee niri talixaad waxa weeyaan ilmaha laga rabo waa in ay lagu kulmo maalin kasta cuntada hal meel waa la wada cunaa laysa alaykum junahun an ta'kulu ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا بور إلهي سبحانه وتعالى إن تكلي عنتان ويبنان تهي إن إسلا عنتان ويبنان تهي مركا إن أنت ميسك لصوضة فريستو حدي سحن وين قاعدت الاستقلال لنا وخير هدان سحن وين أن عنتان الأول عونين وإن حتى نقول بوسحن كيسو كوكورتاي وسيرفس قريستا عنتديسا لكن وإن لسكسو هرجيستا oo indhaha isku dhacaan oo waxaan ku xabada baradhaha ah iyo hilibka cadka yar iyo koobka shaaha ah iyo koobka caanaha iyo juuska waa in la iswadaarsadaa oo ciyaalka la baraa inay isu iithaar sameeyaan oo wax isu huraan oo isjeclaadaan oo mooska isu dhiibaan mooska isu dhiib qajida isu dhiib hebelha sawska isu dhiib waa in ciyaalku ay meel wax ku wada cunaan maxaa yeelay walaalnimadoodii iyo ukhuwanimadoodii iyo usranimadoodii iyo faamilnimadoodii ba strong noqonaysa arintaas waa in yoomiyan la helaa in ciyaalku guriga cunto ku wada cunaan arinta lixaad ee la iska rabo toddobaadan dhehe waxa weeyaan ilmaha laga rabo in laga ilaaliyo aflaanta guriga marka ay joogaan waa in laga yareeyaa musalsalada iyo aflaanta inaga iska daay muslimiina xataa gaalada waxay ku soo qoraan aflaanta wad aragteen qaar baa aan loo ogolay under 18ka wixii 18 plus weeyaan wixii 18 ka sareeya baa ay ugu tala galaan ilmaha filmaanta loogu tala galay family movie iyo ma artay general movie iyo gaaladii baa kala sameystay adigoo muslim ka waran waxa arkaysaa cunug Soomaaliyeed oo 8 jira oo film ma taqaanaaye plus 18 daawanayo oo fuqsi ku dhex jiro oo xumaanta ay ku dhex jirto markaas waxa la rabaa ilmahaasi inuu wadaad noqdo inuu sheekh noqdo inuu akhlaaq fiican la yimaado film gang soo daawanaya bangiyada dhacayo daawanaya dad la tooganayo daawanaya horror iyo movies iyo mataqana vampires uu daawanaya habeenkii uu sasaya waa inaad ogaataa cunugaada waxa uu daawanayo waa inaad ka warhaysaa haddaadan saas sameeynin cunuga adiga halaagay maskaxdiisuna ma qaadi karto inuu horror iyo mataqana vampires iyo inuu filmaanta khaakhda leeyahay inuu daawado cunugaadu capacity-ga malaha ka ilaali oo hadduu xitaa wax daawanayo waxyaalo kadiska loogu tala galay oo korinaya tacliintooda sida iskuulka loo aado sida tuugal isooga ilaali waxyaalo yar ha daawado insha Allah ta'ala aflaanta waa ku kontrosha ta ugu macnaha ta sagaalaad waxa weeyaan waa in aad ka ilaalisaa sidoo kale mataqaanaaye haddii ciyalkaagu ay gaareen high school iyo jaamacada ay gaareen waa inaysan jaamacada u aadan campuska iyo meelaha fogfog waa inaad gabadhaada u dirin waa inaad wiilkaada u dirin wiil aadan tarbiyeenin gabar aadan caqiidadii ka dhisan baad jaamacad u diraysaa markay jaamacadii aado waa taqaanaa markiiba waxa loo dhigayaa ma taqaanaa ethnic wixii baa loo dhigayaa cunugii waxa loo dhigayaa diimuhu inay isku mid yihiin diimuhu inaysan kala fadli badan cunugii waxa soo noqonaya atheist oo kale aniga I'm a peace and love anigu muslim ma taageersani aniga christian ma taageersani I'm a middle dhexdhexaadan ku jiro aniga qoral kuma jiro maxaa yeelay youthka maanta western ku nool boqolkiiba 90 la diin mulxidiin bay noqdeen in aad u dirto jaamacadaha ku dhow ee muslimiintuna ay u badan yihiin masaajida ku dhex yaallo macnaha dadka muslimiinta is arka u dir gabar wax arkaysaa kaligeed Buffalo loo dirayo New York loo dirayo ma taqaanay Harvard University loo dirayo waa kaligeed
quraan lagama dhisin caqiido lagama dhisin xadiis lagama dhisin islaamnimo lagama dhisin markaasaa waxaa laga sugayaa in mataqaanaa gabadhaas ay generation muslimiina oo Soomaaliya ay dhashaan laga sugaya ama wiilkaas saasaa laga sugayaa jaamacada ku dhow oo wanaagsan oo aad ka warhayso oo habeenkii guriga ku soo xaroonaya cunugaaga mataqaanaaye hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah tacaala kula dadaal waxaan ku soo gabagabeynayaa oo tasagaalaada ilmahaaga cuntada xalaasha asi الحلال الطيب الكسب الحلال cuntooyinka badana khanziir baa ku jira mataqaanaa keendiyada iyo waxyaalaha la cuno waxbaa ku jira ilmahaagu wuxuu dhuunta marinayo xalaal ha noqdaan meelaha doofaarka lagu iibinayo meelaha mataqaanaa ee sheeg cuntooyinkan aan wanaagsanayn xalaal ilmahaaga waxaan ahayn ha u ogolaanin waxaan xalaal ahayn iswiitida qaar markay ceelku soo iibsanayaan kulligood way ku qoran tahay 80% qaarkood baa mataqaanaa faatka ku jira waxa lagu leeyahay waa 20% waa mataqaanaa waa pork weeyaan waa inaad waxa soo ka ilaalisaa haddii marka ilmaha qurbaha jooga 8 waxyaalood oo maanta aan ku sheegay aad kula dadaasho insha Allah tacaala adna ilaahay ilma wanaagsan uu kaaga dhigaya إلهي ونكو حفاظينا إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم والدمضة يتوغاني إيوغا متعلمين أو ويل إديكيردا مسلمين بيكونوا ولانيان دعوذنا ويقذنيان ومدنا وينفعيان أدينا نكون فعين إن شاء الله تعالى حلقة اللباد وحنو كأهل دونا خارج المنزل outside of the house مركي بنانك الجيران محا إلمها لقربا تاني وحي أهد ومركي قوريك جوغان عروت إن شاء الله تعالى عيال صالحين أو وناكسن أنبيادي هور وحي أورنجرين كدو عيسن جرين ربنا هب لنا ربي هب لي من لدنك ذرية ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إلهي سيدك لو أمنا في سورة النور سيقول هي والذين يقولون ربنا هب لنا والذين يقولون ربنا هب لنا كبر يا ربنا يا ربنا هب لنا نسي يا رب العالمين ربنا نو أرزاق من أزواجنا غيرها النجا حاسسك النجا عيدها النجا ما شاء الله وذرياتنا أولاد يدا يتفرت نذا الله أكبر قرة أعين وحنه قبو سنو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما دعاء كدعيسو إن شاء الله تعالى أولاد صالحين الله كو أرزاقه أنت قربها جوكتا ودمدا عرف الإسقاء جوكتا إله أولاد ذو حفظه أنت أن ملها جوجنا أولاد ذو أولاد صالحين الله قديقه أولاد وجنريشن كبر ومد بدل لها أولاد قمن وقروح بدن وأهل خيرة الله نقوم أرزاقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.